ururweynaha dhalinyarada ee horseed oo ka howlgala degmada Cagaag iyo deegaanada hoostaga ayaa soo gabagabeeyay koorso waxbarasho oo socotay muddo 2 bilood ah taasi oo ay ka faa'iideysanayeen arday u badan dad waaweyn oo tiradoodu gaadhayso ilaa 60 arday waxaana xafladaasi ka soo qayb galay cuqaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta degmada Cagaag ugu horeyntiina waxaa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada horseed Abshir Cali Cabdi Kabayre ahmiyadda ay waxbarashadu u leedahay dadka waaweyn ee hore uga habsaameynay waxbartaan isagoo u mahad celiyay cidii gacan ka geysatay koorsadan waxbarasho ujeedada halkan aynu iskugu nimid waa sida boardkan ku cad soo gabagabeynta iyo soo afmeerida wajigii goobaad ee waxbarashada dadka waaweyn ee magaaladan ka socotay oo ay fuliyeen ururka horseed iyagoo la kaashanaya dhinacyo kale mashruucani wuxuu ahaa mid loogu talagalay in dadka waaweyn looga faa'iideeyo kana yimid bahda waxbarashada ee magaalada oo maamulaha dugsiga hoose dhexe ugu horeeyay iyo macallimiinta iyo dhammaan dadka oo dhan baahi muuqanaysay inay u baahan yihiin dadka waaweyni in waxbarasho loo furo fayskii koobaad ama wajigii koobaad waxaan ugu talagalnay 60 qof inay ka faa'iideystaan wayna ka faa'iideysteen muddadaas 2 bilood ah bishii 6 labaatankeedii uu bilaabmay 8 labaatankeedii ayuu u gabagaboobay marka inta way ka faa'iideysteen maadooyinka ay qaateen waxay ahayd Soomaali iyo xisaab ay qaadanayeen insha Allah taala galabtana waxaynu gudoonsiinaynaa qof kastaba shahaadadii ka qaybgalka cuqaasha iyo waxgaradka degmada Cagaag ayaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay waxa kale oo mahad leh ururka horseed ee soo abaabulay waxbarashada ee ku soo dadaalay ee maskaxdooda iyo maalkoodaba ku bixiyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Ilaahay waxaanu ku boorinaynaa sida ay u garteen ee dadkooda iyo dalkoodaba anfacaysa inay halka ka sii wadaan macallimiinta waxbartay ee dadka waxbaraysa iyo ururka horseed ee soo abaabulay mid walba mahad weyn baan u celeynaa si adag baan ugu faraxnay maalin dhaweyd waxaan arkay gabadh dhiganaysa waa maxay baan ku leeyahay waa iskuulka loo dhigay waa gabadh sadoho dadkeedu ilaa 7-8 waxaan ku dhintay qof waxay tii dad badan baan ku dhiganaa xagee laga dhigaa halka uu banoqtay meesha waa horumar la gaaray qolada hawsha soo qaadaysan waxaan leenahay ka caajisina dalkiina iyo dadkiina waa waxbaraysaan hantidu meel wacan bay ku baxday wixii intaasi ka dambeeyay waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardadii muddada 2 bil ah wax soo baranaysay iyagoona ururka horseed ka codsaday inaysan halkaasi ku ekeyn waxbarashada ee ay u sii wadaan waxaan ka mid ahay ardaydan meesha dhigata ee 60 qof ah waxaan doonayaa inaan ka hadlo wixii aan baranay horta markii aanu meesha nimid wuxuu maana aqoon waxana maana akhri jirin waxana maana qori jirin alxamdulillaah rabbil caalamiin horta ilaahay baa mahad iska leh waxaan mahad celinayaa macallimiintii ku dadaashay inay ardayda jaahiliinta ay wax barto hadda 2 bilood baan wax baranaynay 2 bilood boqolkiiba 90 waa ka faa'iidnay anu kulli aqoon baan noo kordhay qiimo leh baan noo kordhay aqoontii waxaan maqlay inay dhaheen 2 bilood weeye annaga waxaan jeclaysanay inay 2 bilood aynu ku dhamaanay ilmi diin iyo ilmi maadiyaba bartayadana nooga sii wado ayaan jeclaysanay hadaanu nahay ardaydii wax baranaysay ee meesha joogtay ugu dambeyntiina waxaa xafladaasi soo afmeeray xogayaha degmada Cagaag Cabdilaahi Aadan Xuseen salaam bacdigeed halka waxaan uga mahad celinayaa macallimiinta suurta gelisay in dadkii waaweynaa uu wax barto oo maanta dacfadii koowaad halkan ay kaga baxayaan sida aad u wadaan hawsha u sii wada waxaan mar labaad u mahad celinayaa ururka horseed oo ka taageeray xagga tayeynta iyo qarashka ka taageeray macallimiinta inay hawshan la suurta geliyaan hadda ka hor waxaynu arki jiray arday yar oo la yiraahdo waxay ka baxday dugsigii bay ka baxday waxa loo soo xirayaa dugsi laakiin maanta waxay inoo bilaabatay in la leeyahay waxbarashadii dadka waaweyn baa yaa soo xirantay maanta dad waaweyn baa loo soo xiray waxbarashada ugu dambeyntiina waxaa shahaadooyin la gudoonsiiyay ardadii ka faa'iideysatay koorsadaasi waxbarasho ee socotay muddada 2 bilood ah
وليبان أحمد عيسى ليبان قرن ورك تلفزيون كسومالي نيوز دقمة عقاق.